sidaydan aad ayay u sii laba jibaarmatay. Waxaan sameeyay cod ayaan u duubay saaxiibadeyda isoo wacayaan ku dhahay saacad iyo barka baxdii wax yar ah ayaan u tagtay, laakiinse waxaan arkay wax aad iiga naxiyay. Maxaan ku istaagay far qof dumar ah oo la gooyay. magacayga waa Maryam. waxa ay qisadeyda ku bilaabanaysaa waqti aan ahaa gabar aad iyo aad u jecel inay duubto fiidiyoyaasha YouTube-ka ama dhanka social media, khaasatan YouTube-ka. Mar walba waxaan duubi jiray fiidiyoyaal alaabta aan soo gato iyo alaabta aan dalbado. taasina waxay ii ahayd arrin aad ii farxad gelisa. ugu dambeyn waxaan helay subscribe fiican, views-kaygana wuu batay. waxaan bilaabay inaan isku dayo inaan YouTube-ka lacag ka sameeyo. kadib waxaan la hadlay saaxiibadeyda Sumayo way ii imaatay, waxayna ii sheegtay arrimo ay ka mid tahay in YouTube-ka laga sameyn karo lacag aad u tiro badan adiga oo falcelin ama reaction sameynooyo bes. Sumayo sidoo kale waxay ii sheegtay in YouTube-ka qaabab aad u badan lacag looga sameyn karo oo ay ka mid tahay in lasoo iibsado bogsyaal aan la ogeyn wax ku jiro. aniga arrintii ayaan baaray. sida caadiga ah aniga mar walba YouTube-ka live bis ayaan kasoo gali jiray, soo views-kayga aad ayuu u yaraa. balse Sumayo fikradeeda aad ayaan uga helay. fiidiyowga ugu horeeyay aan soo dhigay oo box qarsoon ka hadlaya, views aad u badan ayuu helay 1 saac gudaheeda iyo like aad u badan. dadkana aad iyo aad ayay uga heleen. anigana aad iyo aad ayaan u farxay. mar kale ayaa dadka waxay ii soo qoreen kommentiyaal aad u qurux badan. qaybaha ee kamida kommentiyaasha waa kuwan halkan ka arkaysaan. midaan aniga aad ayay ii farxad gelisay, waxayna noqotay arrin aad xamaasad u leh, sababtoo ah wixii aan jeclaa ayay dadkana igu sii dhiirigeliyeen. ugu dambeyn waxaan la hadlay saaxiibadeyda Sumayo, waxaan ku dhahay mashruucan waxaa rabnaa inaan si fiican aan usii balaarino. waxay ii sheegtay inuu jiro website laga dalban karo sanduuqyadaas. website-kaasna magaciisa uu yahay dark web. run ahaantii aad ayaan u naxay markaan maqlay dark web, sababtoo ah website-kaas waxaa laga sheegay inuu yahay website aan aad fiicneen. waxaan bilaabay inaan baaritaan ku sameeyo wuxuu yahay. waxaase la yaab igu noqotay in aan bokiskii aan raadinayay aan meesha ka helo. bokiska lacagta lagu gadan karo ma ahan cash ama dollar, waxay ahayd cryptocurrency oo keliya. sidoo kale waxa uu lahaa digniin ah inaad bokiskan ku furtid live adoo ku jira bis. si degdeg ah ayaa waxaan u wacay saaxiibadeyda Sumayo, waxa aana weydiistay lacag in ay isiiso oo cryptocurrency ah si aan uga iibsado bokiskaas. ugu dambeyn waa lii keenay. aad ayaan u farxay. waxaan bilaabay in aan diyaarsado alaabahayga kale iyo kaamiradeyda iyo waxyaalahaas oo dhan. ugu dambeyn kaamiradeyda iyo alaabteyda waan soo diyaarsaday, waxaana iska duubay hal video oo YouTube ah oo horedhac ah oo bokiska aan ka duubay ama sanduuqa. ugu dambeyn hadal badan kabacdi waxa aan bilaabay in aan bokiska fiirfiiriyo, waxaana kaamiradeydana waan soo diyaarsaday. sidoo kale waxaan bilaabay inaan live furto. kadib waxaan bilaabay inaan wejiga gacanta saaro si aan dadka ugu sameeyo surprise ahaan aan uga soo saaro aniga oo aan fiirinaynin. si naxdin wejigayga hal mar ayuu isbedelay. waxaan arkay wuxuu ahaa gacan bini aadan oo go'an. aad iyo aad ayaan u naxay, waana fajacay. ma u malaysanaynin in ay saan dhacayso, laakiinse sidaas ay tahay marabin inaan live ka xiro, waana sii waday. aniga aad ayaan u fajacsanaa, wejigaygana cabsi saaid ayaa ka muuqatay. dadkana waxay ii soo qorooyeen kommentiye ah waxaan run miyaa, boxkan muxuu yahay? anigana ma haynin waxaan uga jawaabo su-aalahaas. aniga aad iyo aad ayaan u naxay. haddana waxaa soo bixi boorsadaas waxaa ku jiray cidiyo iyo timo qof bini aadan ah laga soo jaray. mar kale ayaan aad iyo aad u naxay. wax aan ku hadlana waan garan waayay naxdin awgeed, xitaa hadalkii wuu iga dhex khaldamay. intaas kabacdi waxaa dhacay waxa aan isku dayay inaan fiiriyo bokiska waxyaalaha kale oo uu ku haray. kadib waxaa ii soo baxay tin kale iyo madaxiisa. markii aan soo qaaday laakiinse waxaan ogaaday inay tahay boombale oo aysan dul ahayn. aad iyo aad ayaan u naxay. waxaan si degdeg ah u jara live-kii. waxaan wacay saaxiibadeyda Sumayo, laakiinse way iga qaban weysay. aad ayaan u naxay. waan ku celceliyey ma iga qabanayso.
cabsidaydan aad ayay u sii laba jibaarmatay. Waxaan sameeyay cod ayaan u duubay saaxiibadayda isoo wacayaan ku dhahay saacad iyo bar ka bacdi wax wicitaan kama helin saaxiibadayda. waan sugay muddo badan ayaan sugay. aniga oo u socda si lama filaan inaan jikada biyo ka soo cabo ayaan arkay albaabka gurigeyga laga soo galo oo furan. aad ayaan u naxay, waxaan mooday saaxiibadayda Sumaya inay soo gashay. waan u yeeray way ila hadli weysay. qolka ayaan si lama filaan ku soo galay. waxaan arkay qolka oo aad iskugu dhex yaacsan, miiska oo la tuuray, alaabta oo la isku dhex qasay. aad ayaan u sii naxay. waxaan is iri yaa soo galay haddii aysan Sumaya soo galin. waan socday qolka dhexdiisa. dhanka jaranjarta ayaan aaday. si aayar ayaan u tagtay, laakiinse waxaan arkay wax aad iiga naxiyey. maxaan ku istaagay far qof dumar oo la gooyay. yaa waaye fartaan ayaan iska iri maskaxdeyda. fadlan haddii aadan weli subscribe inoo saara si aan u gaarno hadafkeena oo ah 25,000 muddo kooban gudaheed. midda kale dadka subscribe inoo saaray aad ayay u yaryihiin oo waxaa ka tira badan inta qof aanan inoo saarin videosheena daabatay. marka isku day inaad subscribe inoo saarto, sidoo kale hadda videoga qurxiso adiga